waxaa la xaqiijinayaa inay ciidamada barna ay dhinteen barna ay dhaawac yihiin. ciidamo macallimiinta ay isku dhaceen oo 3 askari oo dhaawaca oo la keenay Hargeysa. macallimiintii tababartii siinayay islaayeen kadib ciidanka qoladii xamaarada ahayd oo meeshoodii deegaankoodii way joogaan. dawdiyaal barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa ciidankii Somaliland ee tababarka lagu qaaday dhankaasi Ethiopia xogaa ayaa kasoo baxayo. ciidankii tababarka loo qaaday weerar ayaa lagu qaaday dhimasho dhaawac inta waa la soo sheegay. sidoo kale xoga dheeraad ka soo baxayaan galbeedka gobolka City. ninkii ahaa madaxweynaha Canfarta waxa uu sheegay in shacabkiisu ku noqon doono hadii ay dhahaan hubka ayaan sii weydana waan dagaalina in dagaalku uusan istaagi doonin. haddaba arrintaasi maxay tahay marka ku dhici kartaa? Soomaalida oo dabaaldegaysay xal ilaa shalay waxay leeyihiin annaga guul ayaan gaarnay, waliba haddii Canfar markaa dagaalka ay soo qaadana dhul hor leh ayaynu qabsan doonaa hadii ay bayiraado. magaalada Jigjiga waxaa lagu xiray niman magafayaal ah kuwaasi oo dhalinyaro Soomaaliyeed doonayay inay u tahriyaan halkaasi Libi. haddaba guud ahaan barnaamijkan arrimahaas aan ku falanqayn doonaa wixii kale ay dib ka soo cusboonaado haddii ay bayiraado muuqaalka la wadaaga saaxiibadii. haddii aan ku bilowno qodobkeena ugu horeeyo waxay saha badan waa ciidankii Somaliland ee dhawaan la sheegay inuu tababar gudaha dalka Ethiopia. marka waxay la daawataa mid ka mid ah saraakiisha ciidankaasi oo ka hadlayo khasaaraha soo gaaray ciidanka halkaasi lagu tababaray. macallimiintii tababartii siinayay islaayeen kadib ciidanka qoladii xamaarada ahayd oo meeshoodii deegaankoodii way joogaan. ciidamada Ethiopia loo qaaday tiradoodu waxa ahaayeen 2,000 oo askari ahaayeen, gaar ahaan ciidamada commandosta. xerada waxaa la geeyay Ethiopia ee Balata. ciidamada xogtooda waxay ku soo gaadhay inay macallimiintii isku dhaceen meeshu waa gobolkii Axmaarada way iska howlo badan tahay. waxaa la xaqiijinayaa inay ciidamada barna ay dhinteen barna ay dhaawac yihiin. welina lagu muraysan yahay. hore iskhilaafyo hore u jiray ciidamo macallimiinta isku dhaceen oo 3 askari oo dhaawaca. hadda inta ka soo laabano bal u tago saaxiibkay Dr. Shade oo asna arrimahaasi si weyn ula socday. Dr. Shade soo dhawow waa arkaysay qodobkan ku saabsan ciidankii Somaliland ee loo qaaday tababarka. waxaan sheegay maalin in mataqaanay loo wado gobolka Axmaarada waana la geeyay halkii baan ugu weerar. aad iyo aad baad mahadsan tahay bidhaanow. arrintani waa arrin dhaba oo saacadii soo dhaafay soo baxday xogtani. ciidanka Somaliland ee dhawaan laga soo ururiyay guud ahaanba waqooyigaasi goobaha inta uu Muuse u gacanta ku hayo ee loo daaburay dalkaasi Ethiopia laguna sheegay inay yihiin ciidamo loo tababarayo maamulka Somaliland ayaa xogta ka imanaysa sheegaysa in ciidamadan oo lagu tababarayay bartamaha deegaanka Axmaarada ama gabi ahaanba xerada ay ka soo baxaan ciidamada commandoska ee dalka Ethiopia ee loo yaqaano Balata in ay ciidamadani ay soo wajahday caqabado aad u adag. ogagii Axmaarada ee faarahayd oo dawladdu dagaal xoog kula jirto oo weeraro joogto ah ku ay xariyaha militariga dalka Ethiopia iyo goobaha ay ku tuumayaan in ciidamada lagu tababarayo iyagoo ku weeraraya diyaarado drones oo isqarxinaya iyo kuwa ciidamo toos ah oo ismidaamiyaal ah ku weeraraya iyo ciidanka oo caqabad kale ay haysato dhanka tababarka askarta dalka Ethiopia sida uu ogsoonyahay cilado waaweyn baa haysta. dalka oo dagaal muddo dheer ku jira ciidanka oo aad u niyadjabsan shaqada loo dirayo oo wax ay ka faa'iidayaan ayna garanin oo abiy daray iyo interest gaar ah uu ka leeyahay geeska Afrika. waliba saraakiisha tababara ciidamadan ciidamada tababaraya waa saraakiil xanaaqsan sax oo dhamaantood shaqadan aan diyaar u ahayn. marka askartii ay tababarayeen askariga ama shaqada yar gafa ama yar fahmi waayaan hal ay ku qaboojinayaan gabaha hoos bay u dhacdhicinayaan. marka sargaal waxaa jira ka tirsan ciidamadaas oo baxsaday oo warbaahinta waraysi sax askarigan hadda ee warbaahinta la hadlaya waa askari baxsaday oo ehelkiisu la soo xiriirkiisa qaraabadiisa ayuu la soo xiriiray waraysigan uu siiyay. wuxuu sheegay in ay dhowr jeer ay ciidamadan marna weerar lagu qaaday marna askar si toos ah ay u toogeen ciidamada militariga dalka Ethiopia ay u leeyeen wiilal dhalinyaro aad u da'yar. markaan arkay sida loo jirdilay iyo xabada nooloo inta la dhacaan ay godkii weli wixii xeradu webi ku durtaan laabi webi ku turayaan dhalinyarada webiga raacaya dhalinyaradan tila laay iyo webiga ku daadin
marka wixii oo dhan markaan u adkeysan waayay u qasday inaan xerada ciidanka ka soo cararo marka xeradan dhowr jeer waxa weerar ku qaaday wiil xogaga faano ayaa weerar ku qaaday dhowrka jeerba wuxuu yiri dhalinyarada deegaanka laga keenay ama Soomaaliya laga keenay dhibaato badan baa ka soo gaadhay wuxuu intaan xaqiijin karo wiil dhow intii aan xerada joogay intaan baxsanay ka hor waxaan xaqiijiyay wiil waraan 15 ka badan dhalinyaro oo la dilay oo ciidamada xamaarada weerar ay soo qaadeen lagu laayay sax lagu laayay iyo kuwa ay si toos ah u laayeen marka waxaan moodaa Muusabix Cabdi qaabka uu hadda dhalinyaradaas iyo meesha u diray in ay tahay meel madow oo la saadaalin karin meesha ay ku dambeyn doontaan Muuse uu yahay Itoobiya cadunimada ay umad Soomaaliyeed hayso inay kala jeclayn askariga Itoobiyaanka ama ninka Itoobiyaanka sidiisa bidhaaro ma kala jeclaan ninka Soomaaliya ma kala jeclaan asagu waa Soomaaliyeed hadduu marba Soomaali ku hadlayo kala Soomaaliyeed waa cadowgiisa waa kiyaabi dilay waa kiyaawi dilay وكيف أسق وجوي إنه دلو أيوة مسيح صح إثيوبيا ده أنا سومالي ده إثيوبيا ما أرتي اليوم بورس كذا أرتي لو شقيستو عدو يوحنا بكد دفاع أنا وناك وهيننا هذي فرصة كل عيلة إثيوبيا إلا رجال هذي جالس كل هلان أيام نقول لي ويل هرجيسة ده كان لغة حماري رجالين أيوة حارسا هذا نور برا وقرنا يا موسى وقرنا يا موسى وين تدرج جاي إثيوبيا واحد تاي لكن عيب يعقدت يقبيالات كل عضي درت ويلش سمارها كاس أو شقوار أو بابي ويلش أنا وكسبر يهلدو دون حتى وحال الله وحب الله برا بدي بحيو هرجيسة حتى وحال كير اللي ما ممكن زمان لأنه كيرك تيجي جيلا كيرك كوا أي نفط إيرل كوتا إيرل كوتا أي على كيري بلا يري صح أو أي ملتري تو بيسود دلين يا هرجيسة دي بلوك سعودي استعلا لو كيرك مركا أوش مركا تبص الصوت رسا إذا ما أنا وحب بدن تاعي إن أي واحد عرنا يوحنا دينا نقول دونا جبهنا الكاسرون كلا بحسن دونا سوت العلمات ترى ويسيب بايسا ما له كوح على لينا يا ولا شرقول وموسى جواه وما صنت هاي هذا النقاسي عفرت نيكي أول 4 حواح صبح الشيء يقول لي هاي دتك هذيك وقت الويان هشيس كان أسرع لك كهربان الصومالي بوجهري وسوا أسرع لي هاي وكم حنا ودقق وسي ودن الأول 4 ما أدري كنت هشيس كان الصومالي الدم وين يقول ترتبع إنه كبه هرتا دم بس الصومالي ده وجرته لأن وأنا لقي أبو إني لكن هذا الشطوة لا يتحي أول 4 شيء أما ورب كل واقعي وركي ورا كدول ورا هذا العروس يكون واقعي وأنا لقي في لي لما جا عفرت تصير ما ظاهران يتوب بيدا كلام كرسوني بكايستا وعلو يا لما كان نمن يتوبيانا جين لما كان دارت كودو ونمن يتوبيانا ونمن تكري يرتريان هي أحمالي قشر إسكال ألوان وأنمن كل أحمل ماي قومينا كلا يتوب كل أحمل ماي أول 4 وحجري شعب كعنفرته وحنا هالو بين عندنا كنا دعم ميس هشيس كاستو صوب حبيره والشعب كعنفرته أنا كوخر عسلين مش شقينا يبي مركب وحكي لك أنت أول 4 شعب كانوا هذي كوخر عسلين ويسيد تجعلهم يدوران وحكي لك أنت هاي أنت لك أنا حب بقال شعب كان عنفرته ميلا يعني لك كجو عفرت وحير بتاع إلى ديجانا يودرس أيوة إسكيشان عد سومالي أنا الوعرة إن كستو حدا بدي يشيسك ونيجي الناس سومالي قالت ركن ولا ليه هم لبعض عندنا ولا كرقاد تذكر ولا استحجرين وهيشينيان بيقولون كنا لبعض عندنا وكيكرة تيجيان ملتري يعني أمانك السوقية ده كان لهم ليه هذا عفرت أين هذا الملتري مصوقية أنا قاعد السوقينا أول 4 حكي كده عيدك كده وانفصل مركب وحكي كده أنت تذكر الصومالية اللي وصل عندنا بيقولون جاز مركب يمادات عيدك وانفصل ولا لا يا كده جدا صح مركب واشرقول ولا يدك سومالي وإني باش عيش يدك قلبك 6 دقن وإني كدك تورادان إنه شرقول كلا دعوة صوته وحنا وين تي هوري لو قصص على عيدك سومالي ولا يملتنا الأول يجد إني عفرت مركب قرب عيش السوق قش إني حافظين عندك سوورس ذاك باس إني كفرت شاب بقول أقف إني لا دول علفت هل يقوم بين وحيد بحثي والله ما يجيش كي يحيلوا وحب يجيب المالك هاس بجود صح وعيد بنان ويجرو يروح أميرته كل يران أو كبده كل يران يعني كلام بيل يسأل يجلس تاجر سينو له هذيين إنه له هذيين وبهالمرة أمر بحيل تلي باس على سام أيوة قري تبي دول مرة نبي ونقول ذي صح مركز ضدك أنت شنب قلقف أنت جبنا ضدك ويديين أوكي ضدك مركب حيلي مسافة إيش هذا ضدك لو تيجي تبدأ هذا نين واسكت ضدك اللي توجني ملتري يتوب ويداون يمبر صح توس بدورين عاد ذكر الله يقص لي يمبر كان عرق يحبط ضمن عيس مرك حتى لو وحي وكلام أول 4 وذا أول 4 بك وليه كم عدينا كو قنعن ويودنا يعني تدتك وليه ولا تجعلهم وضدك سومالي رسول علي إلا شعب سومالي عفر بيستجعلي وضد سومالي يا لكو العسلي لكي هذا بحال أمرين عندما إثيوبيا
ay dadka shacabka ay ka dhigaan ciidamada kale la kala qaado marka qorshayaal waaweyn oo shirqool ayaa galbeedka city ka soo socda waa inay dadka Soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan waa inay qoryahooda ay ilaashadaan oo meel dhigtaan hadday afarta ay isu dhiibaan ama magaalooyinka dib ugu laabtaan tiyo kale baa dhacaysa anu waxaan leeyahay lagu noqonina colaad hal la muujiyo awal arban laga warsiyo talaabo soo qaaday وأركنا إن شاء الله دوريال ذكر جول سيتي وحلوة الصنايع إن إيسان إسدجان سمكاسنا إيسان سوها اللينين حكومة الفدرال إنتوا بس النفط ذي له بدأ كشطان هو كودنا أي رصدان هذا ترى مقالة تكتشجو مع المهن وحنا قطين مريم أي مرة ذاتك تهريبية وما نقدم بسبب أي لمرنا إذا يرى بدن قاركون الدنيا كوسو تشدو ولا كقاني هذا ما يرتاسي أنت بدن وتضل المريء أي واحد شيء نتهاي وماشي اللي هذا إثيوبيا السودان تشاد موروكو halkaas markaa la gelin jiray Tunisia marka waa wadan maxay noqotay marin xalaq mareed ah laakiin ciidanka dowladda gaar qaybaha amniga ee arrimahaasi ka howlgalay hadda meel fiican ayuu wax maraya dadkashadu arrimahaasi bal ka waran ciidanka dhaqaaq ay wadaan ay ku warsanayaan nimankan qabayaasha horta bidhaar saad u soo tahay deegaanka Soomaaliya intuu isbedel ka dhacay nooca dimuqraadiyad ah oo dadku in isku aaminaan naftooda inay deegaanka ku noolaadaan ama ay ku socdaalaan ayaa soo kordhay dowladda Mustafa waxaad moodaa inay waxyaabo badan kaga duwan tahay dowladii hore waxay kaga duwaneen dowladii hore deegaanka Soomaaliya xuduudaha lama soo geli karin iska daa ruux hadda kuwa la qabtay taariibayaasha la keenay Muqdisho iyo Gaalkacyo iyo Garowe laga keenay iska daa kii muwaadinka u dhashay hooyadii iyo aabbii ay joog walaalada ay dowladda ku jireen ayaan xuduudka soo maartay badno aan qalbiga naftiisa ku soo aamin karin oo wuxuu ilaa intuu codsiyo soo diro waraaqo soo diro cadaymo soo qaato inuu reer soo saar inta bariid soo joogay deegaanka intuu xagga ku maqnaan jiray wax hukuminta soo gudbin jiray laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaaliya in integration iyo isdhexgal iyo dadka Soomaaliyeed oo nin walba iska iman karo dib u inay noqotay dadka arrinta markay dhacday mayna sida xun bay uga faa'iideysteen magafayaashii ayaa dadka ku soo dhaxdoontay hadda waxaan u malayn usbuucan gudihiisa waa markii saddexaad ee dad la taariiminaya laga qabto maalin hore qabridahan ayaa lagu qabtay ayagoo wada dad dhan oo xayn dhan ah oo gaari burburkiisa lagu wado oo laga keenay dhanka iyo Gaalkacyo laga keenay ayaa laga qabtay dukumentiga wateen dhammaantood waa koonfurta Soomaaliya dhalinyaro yar oo deegaano kala duwan laga soo wada ururiyay dadkii inta la qabtay eheladoodii baa u yimid oo loo wareejiyay haddana maanta waa jigjiga lagu qabtay marka wada waxay noqotay dadka laga taariibiyo jigjiga la mariya meesha ay goondar baa la mariya xagaas baa laga wareejiyaa gobolka xamaarada la mariya dadkan waa magafayaal isku xiran waa Ethiopian iyo Eritrean ila Sudanese isku xiran kuwa Soomaalida markii jigjiga qadan adisaba degeeyay wala laga wareegay Ethiopia baa kala wareegay marka adoo Soomaaliya Ethiopia markii ugu wareegay nafta kasoo baalkaas xuriyad ugu dambeysay inaad hadasho iyo inaad dad laaban karto waxaad u leeyahay anaga kuwadana Soomaaliya waa rabeen hal warsano ku Soomaaliya ka mi anaga inay meel leeyahay ana ku geem kule Libya laakiin aad sabab ku talagina la jiro asagu dhuman shaqadiisa dib ugu soo laabay dib dabadee baalka Ethiopia ma kala wareegay Ethiopia ma soo kala bisolada wadataa hadda jooda ma ku markaas xuriyadaadii meesha ku dhamaatay marka dhalinyarada Soomaaliyeed shirqoolo waaweyn baa yaa loo dhigay magafayaashu way noocyo badan yihiin marka ciidamada deegaanka Soomaaliya aad baan uga mahadcelinayaa talaabada ay qaadeen iyo fashilka iyo dadka ay naftooda badbaadiyeen aad baan uga mahadcelinayaa shaqada dowladda Soomaaliya maxaa la arrintaasi weyn isha ugu hayso waad maasantahay daawa inta muuqaal